goobaha ardada dusheeda ku yaal yaa u khayr badan kacbada ayaa la yidhaha u fadli badan laakiin waxaa ka fadli badan kista yarta ee nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku duugan yahay yaa dariixu rasuulillaahi qad faaqa jannatan wa carshan wa kursiyan kadaa kulla mawdic uu yidhi imaamu zaylaci sheekh zaylaci sheekh cabdiraxmaan zaylaci waxa uu dhahay dariixu rasuulillaahi qad faaqa jannatan qabriga nabiga calayhi salaatu wasalaam jannadii uu markaasi ka sara maray uu ka sharaf badan yahay wa carshana uu ka sharaf badan yahay wa kursiyana uu ka sharaf badan yahay kadaa kulla mawdic meel kaste makaan kastee sharaf loo nisbeeya waxaa ka sharaf badan buqcada yarta ee nabiga jasadkiisa uu yaallo calayhi salaatu wasalaam maxay ku hesha sharaftaasi waa nabiga calayhi salaatu wasalaam itisaalka iyo xiriirka nabiga kala dhexeeya calayhi salaatu wasalaam iyo qurbiga ee dhowaashada nabiga ay u dhowdaha calayhi salaatu wasalaam marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam tashriifka ilaahay uu u sameeyey waa inay asminadii ay ku sharafowday waa inay amaakinta ay ku sharafowday nabiga calayhi salaatu wasalaam marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa jiray xadiid oo markaasi uu soo saaray waasilatu bnu lasqac ayaa nabiga ka wariyay calayhi salaatu wasalaam imaamu muslimna wuu soo saaraa fii saxiixihi imaamu tirmidina waa soo saaraa waxau dhahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam asagoo tashriifka iyo qiimaynta iyo fadliga ilaahay siiye ka hadlaaya ina allaha asdafaa kinaanata min waladi ismaaciil wasdafaa min kinaana qurayshan wasdafaa min qurayshin bani haashim wasdafaanii min bani haashim fa ana khiyaarun min khiyaarin uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay awlaaddii nabi ismaaciil waxau ka dhex doortay reer bani kinaana reer bani kinaanana qurayshaa ilaahay ka doortay subxaanahu wa tacaala qurayshoo idilna waxaa ilaahay ka dhex doortay subxaanahu wa tacaala reer bani haashim reer bani haashimna ilaahay anugu iga dhex doorta uu leeyahy nabiga calayhi salaatu wasalaam fa ana khiyaarun min khiyaarin qolo la doortay ayaan ka mid ahoo owlaadda nebi ismaaciil reer kinaanaa laga doortay reer kinaanaan ka mid ah kinaana waxaa laga doortay qurayshtiaan ka mid ah quraysh waxaa laga doortay reer bani haashimaan ka mid ah reer bani haashimkina anaa layga dhex doorta uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waa tashriifka nabiga calayhi salaatu wasalaam rabbigiisa uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam waxaa la ogsoon yahay xadiidkii imaamu dabaraani uu soo saaray min riwaayati ibni cumar ee nabiga uu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo xadiidkan ku macno ah ina allaha اkhtaara khalqah faاkhtaara minhum bani aadam ثuma اkhtaara min bani aadam alcaraba ثuma اkhtaaranii min alcarab falam azal khiyaaran min khiyaarin calaa man axaba alcaraba fabixubii axabahum waman abqada alcaraba fabibugdii aqlabahum uu yidhi nabigu sal allahu alayh wasalam ina allaha اkhtaara khalqah ilaahay makhluuqaani waa doorta cid allaala yacqal ha naqda maalaa yacqal ha naqda duruux iyo maalaa ruux cid allaale ciddiba ilaahay iraadadiisa ay ku sabqisay inuu iijaadiyo oo ficlal iijaad uu ku qumo waa mukhtaarun min allaahi casa wajal waxaa koonkan dushiisa ka muuqdee baxarkan iyo barrigan iyo marka jamaadaadka iyo markaasi xayawaanaadka yacqilkooda iyo maalaa yacqilkooda waa mukhtaarun min allaahi caza wajalla lificli اliijaad ilaahay wuxuu u doortay inuu noqdo mawjuud mid jooga inuu noqdaa ilaahay u doortay subxaanahu wa tacaala waxau yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ثuma اkhtaara min bani aadam faاkhtaara minhum bani aadam makhluuqi tirada badnay waxaa ilaahay ka dhex doortay bani aadamka bani aadamkaa ilaahay ka dhex doortay subxaanahu wa tacaala bani aadamkii way tiro badan yihiine carabaa ilaahay ka dhex doortay subxaanahu wa tacaala
عربتنا إلهي أنو إذا نحضرته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم أزل خيارا من خيار مروى البابك واحدة للدورت إنا كمد أهي كم زيولينه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلهي هدي عد فعل الإيجاد أو إرادي مختار من الله هديتهي فأنا من المخلوقين مخلوقا كمده إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدي مخلوق بني آدم لقد نحضرت أنا بني آدم كان هايوي بني آدم هدي عرب لقد نحضرت أنا عربا هايوي إلى النبي عليه الصلاة والسلام عربتي ودن إلهي أنا قصي نحضرتي على من أحب العرب فبحبي أحبهم عد عرب جعلها لهذا أنا جعل كي أوجي سي جعلاه عد عرب نعي سنة أنا نعيب كي أوجي سي ونعي وعربت وحديث كلواكي أهي عربت جعلها سدح والحاطنو جعلها وأنا عرب أهي عرب جعلها إنه قرآن كعربي لغة عربي وكسعود وجعلها كلام أهل الجنة إنه عربي هينه عرب جعلها مركا نبي عليه الصلاة والسلام مخلوق إلهي يردن وأحد كإلهي كليس أو كدورتي بل وحل إلهي مخلوق كلا نمبه وصابت الله أبو ريا وحي تايبه إن مركز نبي أي برتام عليه الصلاة والسلام وحاجر حديث سلمان الفارس نبي وكوري عليه الصلاة والسلام ابن عساكر نو صار حافظ الدنيا أي صاري وحول النبي عليه الصلاة والسلام جبريل أويمد مركز وحوله إن ربك يقول إن كنت اتخذت إبراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبا وما خلقت خلقا أكرم علي منك ولقد خلقت الدنيا وأهلها ليعرفهم كرامتك ومنزلتك عندي ولولاك ما خلقت الدنيا فيري الدنيا لا واحد دشيء يلبى يعقل إيه ما لا يعقل ذو الروح إيه ما لا الروح ضمان بوحاله أبو ريبة النبي الله محمد قيمها إيه درجة إيه شرفته إيه كرامته إلهي أكتيس أو كلية إني برتان الله برك لي بالله أبو ريبة وأحد كان لا أبو ريبة برنا كليه أيال الله لم شيء يا لما شيء كروال لقبض يا لله حال لقبض يا أنا كنا ما حنا لا أبو ريبة إلهي قلنا أبو ريا نجيغان والله ما حكمته نا أبو حكمته نا أبو إلهي أسان نجيغان حكمتنا لا أبو ريا وحاكم ذا إن النبي الله محمد قيمة أوليها أمر النبي وحولي النبي عليه الصلاة والسلام جبريل يصدق مركز وحوله إلهي وحو كليه هدي النبي الله إبراهيم أن كدكت خليل واتخذ الله إبراهيم خليلا هدي خليل يودي صاحب جارة نبي إبراهيم دان كسم يستي هذيك حبيب كي جان خادق حبيب كي حبيب إيه خليل وحمر تبوين حبيب وحوله النبي عليه الصلاة والسلام إلهي وحوله جبريل مركز وشيء أو خبره وعربك كله ما خلقت خلقا أكرم علي منك نبي الله محمد مخلوق كرامة بدن أو أنا أكتيد قيمة بدن أو درجة بدن ما أبورين يا إله الله سبحانه وتعالى ولما حكمة يا إله الدبر ولقد خلقت الدنيا وأهلها الدنيا يوحي كنال وان أبوري سببتنه ليعرفهم كرامتك ومنزلتك عندي كرامة هي الدرجة هي قيمها أكتر إذا أكل هذا إن أنبره كليان أبوري ولولاك ما خلقت الدنيا هدي أديك أنجري الهين الدنيا ما أبوري الهين مركا أنا كوحنا لا أبوري وحي تابا إن نبي الله محمد نلبره درجة إلهي أكتيس أو كلية هي قيمة إيه كرامة يا ماموسكا إلهي أكتيس أو كلية إن لبرو إنتاس أمبان لا أبوري وحكمة لا أبوري مركا إسوء مادية النوع عانا النبي قال سكشكينا عليه الصلاة والسلام وما
isbaridii iyo tacriifkii ilaahay oo noo abuurayaan aan bahaynaaba oo nabigeena isbarna leh calayhi salaatu wasalaam ilaa ilaahay anaka wuxuu noo abuuray in nabiyullaahi maxamed uuna baran leh calayhi salaatu wasalaam marka ikhwatal iimaan nabiga calayhi salaatu wasalaam ixtifaalaadkiisa iyo isu imaadyada markaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam qiimayntiisa iyo tacdiimkiisa ka tarjumaya waa wax markaasi sanadkii mar iska daaye bil kasta iyo usbuuc kasta iyo maalin kasta iyo saacad kasta iyo daqiiqad kasta iyo laxdo kastana looga baahnayo sida shaacirka uu yidhaah nala gudboon markaasi walow annaa camilnaa kulla yawmin liaxmeda mawlidan qad kaana waajib maalin kasta haddii ixtifaal aan u samay lahayna nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waajibay nagu ahaaday laakiin duruuftaa nala gaabisay marka in sha allahu tacaala kelimaadkaygii halkaasaan kusoo gaabiya